Assalaamu calaykum. Kuwan waa macluumaad ku saabsan bahcadceedeedka ee qorraxda iyo meerayaasheeda, sida maalintu intay u dhiganto meerayaasha qaybtood, iyo iftiin aad u weyn oo samada lagu arkay 1000 sano ka hor, dhowr usbuucna muuqday wixii sababay, iyo weliba biyaha laga helay qorraxda dusheeda iyo xogo kale. Dhulkan aan joogno maalintiisu waa 24 saac, laakiin meerayaasha kale iyo dayaxa waa naga waqti duwan yihiin. Waxaa noogu soo dhow meeraha Mariikha, Mars, oo maalintiisu tahay ku dhowaad 25 saac. Laakiin intaanan meerayaasha kale u gelin aan dayaxa fiirino. Haddii aan dayaxa ku noolaan lahayn, maalintiisu sidee bay ahaan lahayd? Horta sida muuqata dayaxa marba qaybtiis ayaa ifta. Qaybta ifaysa maalin ayay u tahay oo qorraxda ayaa haysa. Qaybta mugdiga ahna habeen ayay u tahay oo iftiinka qorraxda ma hayo. Haddii aan dayaxa ku noolaan lahayn, dhulka ayaa waxa uu noo noqon lahaa sida dayax ifaya oo kale. Meerayaasha kale ayaa iyaguna sida dayaxa oo kale u iftiima, inkastoo aan isha ku arki karin. Laakiin markii teleskoob lagu fiiriyo waxaa la arkayaa tusaale ahaan meeraha waxara xir oo qaybtiis ifayso, qaybta kale oo aysan cadceedu qorraxdu aysan hayninna ay mugdi tahay. Arrintaasi oo caddaynaysa in iftiinka ku dhaca dayaxa iyo meerayaasha kale ay qorraxda ka timi. Haddii dayaxu iftiinka isaga iska lahaan lahaa, marna qaybi ma madoobaateen. Markaan u soo gudbo maalinta dayaxa, ayaa marka hore maalintan ka hadlayo tahay markii ay qorraxdu soo baxdo oo dhacdo oo haddana soo laabato ayaa maalin dhammaystirmatay. Haddaba dayaxa maalintiisa haddaan tan dhulka barbar dhigno, waxa ay tahay 29 maalmood iyo bar. Oo haddaan deganaan lahayn dayaxa, qorraxdu waxa ayna iftiimin lahayd 2 usbuuc ku dhowaad, waxaana habeen ku jiri lahayn 2 usbuuc, taasoo ka dhigan hal maalin dayaxeed, maadaama qorraxdu ku soo laabatay oo iftiimisay bil kadib isla meeshii. Meerayaasha qaybtood ayaa iyaguna waxa ay leeyihiin maalmo aad u dheer. Meeraha waxara xir, Venus ama Zuhra, ayaa waxa uu leeyahay maalinta ugu dheer meerayaasha. Sababtoo ah si tartiib ah ayuu u wareegaa, taasoo keenta maalintiisa oo dheeraata. Haddii la barbar dhigo maalinta dhulka, halkii maalin ee meerahan waxa ay u dhigmaa 243 maalmood marka dhulka la joogo. Meerahan waxara xir maadaama ay ku gadaaman yihiin daruuro jiq ah, ayaan qorraxda si fiican looga arki karin. Meerayaasha kan ugu maalinta gaaban ayaa ah meeraha Cirjeex, Jupiter, Mushtari, maadaama uu si dhaqso ah isu wareejiyo iyadoo maalintiisu u dhiganto wax ka yar 10 saac. Dayaxa haddii aad ku dul socotid oo aad raad ku samaysid, raadkaasi malaayiin sano ma tirtirmayo oo sidiisa ayuu ahaanaya. Sababtoo ah wax dabayl ama leh dayaxu oo hawo ma jirto, maadaama hawada iyo dabayshu ay ka qayb qaataan inay raadadka tirtiraan. Waxyaalaha kale oo raadadka tirtira oo uusan dayaxu lahayn ayaa ah biyo dareeraya iyo fulkaanaha. Laakiin mararka qaarkood ayaa waxaa ku dhaca dhagxaanta hawada sare meeraysta oo markay ku dhacaan qarax sameeya godadna uga taga dayaxa. Dhulka hawadiisa ayaa qayb badan oo dhagxaantan ah ka ilaalisa, maadaama marka ay hawada dhulka soo galaan ay ku gubtaan, halka dayaxu uusan hawo lahayn ka difaacda. Haddii dhulka hawadiisa laga baxo, samadu mar walba waa madow. Waxaa sidaasi la mid ah haddii aad joogi lahayd meel aan hawo lahayn sida dayaxa oo kale ah. Xataa marka ay qorraxdu soo jeedo, dayaxa cirkiisu waa mugdi. Arrintan ayaa waxa ay ku tusin in buluugga ay u muuqato samadu maalintii ay xiriir la leedahay sida cadceedda qorraxdu u dhex marto hawada dhulka ku hareeraysan. Waana waxa keenay in marka ay qorraxdu soo baxayso ama maqribkii ay dhacayso, kalarka ku hareeraysan uu noqdo jaalle ama guduud, maadaama ay cadceedda qorraxdu hawo badan soo dhex marayso. Markii qorraxda iyo dayaxa laga soo tago, meeraha waxara xir ayaa waxa uu yahay shayga ugu iftiin badan cirka, oo inta badan la arko marka ay qorraxdu dhacdo maqribkii ama subaxii intaysan soo bixin. Maalmaha kan ayaa waxaa meerahan la arki karaa subaxii qorraxdu intaysan soo bixin wax yar ka hor. Laakiin dabayaaqadii bishii Abriil ama bilowgii bishii May sanadii 1006 miilaadiga ayaa waxaa cirka lagu arkay iftiinka xidig aad u weyn oo aan horay loo arkin. Waxaa wax ka qoray dad aad u fara badan oo kala joogay Shiinaha ilaa Yurub. Dadkii wax ka qoray ayaa waxaa ka mid ahaa qoraa Muslin ah oo la oran jiray Ali ibn Ridwan oo Masar joogay, isagoo tilmaamay in iftiinkiisu u dhigmay 4 meelood meel iftiinka dayaxa. Dadkii kale oo wax ka qoray ayaa waxaa ka mid ahaa Ibn Sina. Iftiinka xidigaas ayaa waxa uu ku bilaabmay si tartiib ah, isagoo fiday 3 usbuucna iftiinkiisa la arkayay, markaa kadibna damay. Waxaa lagu fasiray in iftiinkaasu ka yimi 2 xidig yar yar oo isku dhacay oo markaasi qarax sameeyay, waxaana teleskoob lagu arkay haraadigii ka haray xidigahaas. Haddii hawada dhulka laga baxo, cod ma maqlaysid, maadaama cod si loo maqlo loo baahan yahay in codku meel uu dhex maro helo, sida hawo,
biyo ama dhagax oo kale. haddaba dayaxu saan horay ku soo sheegnay hawo ma leh, taasoo macnaheedu yahay haddii agtaada laga qaylinayo ma maqli lahayn, oo haddii aan dayaxa deganaan lahayn waxaa lagu wada xiriiri lahaa telefoon kaliya. biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan ay dadku u baahan yihiin. dhulka aan ku noolnahayna uu aad uga buuxo. laakiin markii la baaray ayaa dayaxa iyo meerayaasha qaybtood laga helay biyo barafa. meesha ugu yaabka badan ee biyo laga helay ayaa ah qorraxda, oo laga helay biyo uumi ah ama bukhaar ah, water vapor. maadaama ay qorraxdu aad u kulushahay, qaabka loo helay oo aan hadda ka hor ka hadlay ayaa waxaa la dhahaa spectroscopy. qorraxda iyo xidigaha aadka nooga fog waxa ay ka samaysan yihiin ayaa garan karnaa. iftiinka ka yimaada qorraxda iyo xidigaha ayaa spectroscope-ka lagu fiiriyaa. markaas ayaan arki karnaa maadooyinka ay ka samaysan yihiin. xidigaha iyo qorraxda waxa ugu badan ee ay ka samaysan yihiin waa hydrogen iyo helium. waxaana kaloo laga heli karaa maadooyin kale oo fara badan oo ay oxygen yarna ay ka mid tahay. haddaba biyaha ayaa waxay ka samaysan yihiin 2 hydrogen iyo 1 oxygen. marka waxaa dhacda mararka qaarkood in meelo xoogaa ka qabow qorraxda inteeda kale oo la dhaho sunspots lagu arko uumiga biyaha markii ay isku darsameen 2 hydrogen ah iyo 1 oxygen, taasoo ka dhigan in mararka qaarkood qorraxda dusheeda ay biyo ku samaysmaan iyagoo uumi ah. intaas ayaan ugu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.